sanadkan horaantiisii ayaa ka dhaqan galay dalka Norway sharci cusub oo dhigaya in baasaboorka Norwejiga ay qaadan karaan dhammaan dadka ka soo jeeda wadamada ku bahoobay midowga Yurub kuwaas oo haysta baasaboorada waaweyn waxaana bilo kooban gudahooda codsaday dad ka badan 26,000 oo ruux sidaas si lamid ah ayay muwaadiniinta haysta baasaboorka Norwejiga iyana u codsan karaan dhalashada wadan kale oo midowga Yurub ka tirsan sidoo kale dadka magangalyo doonka ah ee Soomaalida ku jirto oo waqtiyo badan sugi jiray ayay fursad wanaagsan u tahay sida ay shaacisay hay'adda soo galootiga ee UDI waxa sare u kac ku yimid dadka dalbanaya baasaboorka Norwejiga kuwaas oo horey u ahaa ilaa 14,000 oo ruux iminka uu marayo 40,000 oo ruux UDI ayaa ilaa iyo hadda aqbashay codsiyada ilaa 14,000 oo ruux waxaana 26,000 ee kale lagu wargeliyay in ay ku xisaabtamaan sugidda waqti dheer inta laga qiimeynayo codsigooda dadka qaadanaya baasaboorada ayaa waxa loo ogolaanayaa in ay isku haysan karaan labada baasaboor taas oo ka dhigan in aysan luminayn mid kamid ah baasabooradooda iyadoo intii laga qaaday baasabooradoodii hore ay iminka dib loogu soo celin doono